shir maalmihii ugu dambeeyay u socday odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka magaalada Laascanood lagagana tashanayay ayaha amni ee gobolka iyo sidii loo adkeyn lahaa amni darada mudooyinkii ugu dambeysay soo food saaray magaalada Laascanood waxaana hal mar saaka ka soo dhex muuqday shirkaasi waxgaradka magaaladu ay kaga tashanayeen ayaha mustaqbal ee magaalada wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliya Salebaan Yuusuf Cali Koore oo u muuqday mid shirkaasi walaac badan ka qaba waxaan halkaasi ka hadlay waxgarad ugu horeeya boqor Khadar Cali jaamac oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkaasi hormuudka u ahaa isagoo xukuumadda ku duray amni darada magaalada Laascanood iyo dilalkan soo noqnoqonaya loona geysanayo hormuudka magaalada hadalka baa la yiraahdaa runta laga sheegin wax ka xun baa laga sheegay reer Laascanood hadda waxaan maqlayay maamulka weynu xamanin oo maxaan u xamanaa wixii xaqa xan maaha wixii xaq ah lama xanto kor iyo hoosba waa loo sheegaa inaynu hadda markii xoogay askari inoo timi hadalladii dee la gaagaabsado ama la bedelo dee maba tashan karayno maamulka waxaan leeyahay shacabku inay xaq bay u leeyihiin inay shiraan waa xaq bay u leeyihiin inay shiraan danahooda ka shiraan weliba wax amni xumaa ma wadaan waa dadkii odayaasha iyo caqliga iyo amniga iyo wanaagga ka shaqaynaya waxa meesha isugu yimid waxay ahayd inaad ilahadda waxaad xukun militariyaad lagu qabsatay marka laydin yeedho inaad timaadaan ama halkeena ku sugtaan dad shacaba baa shirayay danahooday ka shirayeen haddii ay beerisleeyahay waxa ay soo gaadhaan qodobada dhan waxaa ku jira maamulka magaalada jooga waa inaynu ula tagnaa bay ahayd jishada waxayna taasi waa kalsooni daro arrimaha hadda magaalada ka taagan ee ugu dambeeyey baa ka hadlaya waad ogeydeeno kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen nin reer cidmiya baa halkaa lagu dilay niman faarax caliya baa dilay lama soo qaban kii oo taagan baa misna mid kale ay dileen iyagu ma soo qabane annaga intaanu maamulka u qaybsanay iyo rag niman reer cidmiya baa caydhsaday maamulka u yeedhay militariga u yeedhay bileeska u yeedhay waa la soo qabtay maalinkii la qabtay baa siilaanyayin iyo dawladdii oo dhan habeenkii biyadaamis iyo abaaraya baa dad ka hadliya laakiin anugu amnigan ka hadliyay kaa maanta aad ka qaylinaysaan baan maalintaas siilaanyo hortiisa ka hadliyey oo aan lahaa ha ka tegin waxa kale oo dhan abaartu nuunbay reebaysaa dagaalka kan taagan ee magaaladii lagu kala qaxayo siilaanyow haddaad ka tegtid adaa isku dilay baan shaaricu dhulbaantoo dhan jooga ka wey nimanka hadda wax dilay ha ka tegina haddeer dil waa waxa laygu haystaa aniga godobta laygu gaarkaa laygu xiyey waa waxa ninkii wax dila waa in la dilaa ma dhicin waxaa la sameeyey maxkamad baa la saarayaa waa la saaray waxaa la jiifiyey adeega kale arbeerku tii bay hurdaan tii baa misna waxay sababtay in nin kale oo haddii ay beedankaga leeyahay miskiina oo dadka muudkiisii ah oo ganacsataa in la dilo taasi markay dhacday annagu lugay faras waanu soo qabannay nimankii waxgeysta ee gacanku diiglayaasha ahaa weliba waxaanu ka bilownay si aanu u helno 20 iyo dhowr nin baanu soo xidhnay kii teleefon u dira kii saaqulo u dira kii aanu uga shakino inay nimanka uu bixinayo madax walba halkaas aan ku soo xireen nimankii gacanku dhiiglayaasha markaanu soo qabannay nimankii dee kale aan dembiga lahayn waa tii la sii daayey waa taad maqlayseen sharaq alqarab ay isaga duushay gacanku dhiiglayaashii baa la sii daayay 20 bay ahayd maxay keenaysaa taasi ninka gacanku dhiiglaha marka ama beeshiisa ha soo qabatee ama dawladda ha soo qabatee in ay haddii ay beedankaga leeyahay kalsoonidiiba dee ka xumaato inay kalsoonidiiba ka xumaato waa laga soo waadhay
markaas anigu waxaan u tegay iyo odayaal fara badan oo reer laascaanoda maxamedka ahay baan u tagnay oo garaad adeebadanka leeyahay anigu waxaan leeyahay in cali koore maanta isagaa wasiira dhibaatada maanta lagascaanood ka dhacday ugu dambaysana raaskiisii weeyaan waa raaskiisii waxaan leeyahay wasiir nimankii hadda ninkii ugu dambeeyey dilay soo qabo waxaad u soo qabataa wasiirkii baa tahay dhulbaante wasiirkii ugaaliyahaan baa tahay wasiirkii raaskaagii weeye arrinta tani bay ka dhacday ee soo qabo markaasaa xukunkaaga iyo wasiirnimadaadaadu meel maraysa in adeerkaabaa wax dilay baxsaday adigu wasiir u tahay 30 ciidan aad isku wareejisaa nabadgelyo ma dhalinayso adna nabadgelyo ku heli mayso kuwii haddeer dilayna soo qabo wax adaa wasiire kuwii dilay ninkii hore ee ina nuuradiine faarax cali ay maadeerada ee muuse faaraxana soo qabo ilaa adaa yidhi dawladdaa kala maamulayso dadka jeelkaasa iyo maxkamadaasaa lagu kala baxayaa waxay beertigii soo qabo 3 nin ee dilay ninkii reer cilmi ninkii maxamed cabdijibiil ninkii dilayna soo qabo